dhaqaaqi iyo qaabkii marshada loo gelinayo iyo birimada qaabkay u dhaqaaqayso. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u baahanahay ila socod wanaagsan marka waxaan u baahanahay waxaan ka bilaabaynaa firizoonka lagu saaraynaa dhulkaan geeyina kadib marshadan uma hayna waa tii haday aan noo sharaxay waxaan raadinaa calaamadda waxaan ku qasbanaa marka kaamirada dhinaceeda inaan soo aado kadib aan hore u geliyo marka intaas sameeyo tag fadhigeena aan quruxsado waxaan u baahanahay marka sheel laha wax yarna lagu saarto kaasna ayar uga soo kaco firizoonka si tartiib uga soo kaco si tartiib sheel lahana wax si tartiib u taabto kadibna aan hore iska fiiriyo soo bismillah gaari dhaqaaqo sameeyo marka soo kici kara hadda sheelan waxa u baahanahay wax yar oo tartiib inaan ku daro aan iska waalinin marka barad tahay lama rabo sheelan in lagu dhagada sheelan ku dhigto gaariga waa kula fakanaa wax aad ka celi karto ilaah oonta ma jiro astiibka iskiga socota bes firizoonka toos waa ugu soo dhamaaday sheelan hadda haya laakiin ogaa gaariga birima kaliya ma ku soconaa wuxuu u baahan yahay markay caadiga tahay birima iyo sugunta inuu ku socdo saa u jeedid hadda birima bas ku wadaa sababtoo aan sheelan badan ma wado si tartiib u socdaa oo iska waalinayo ujeeda gaariga hadda birima bas ku wadaa tartiibkaas loo baahan yahay kaliya waa kaas aan hadda birima ku wadaa kuma sugunta kuma darin taasuna kuma darin ilaa waxa loo baahan yahay qofka markuu ku yahay birima inuu ku barto sheer lahane oo si tartiib faraha hore oo saartaa oo si iska badanin mid kale waxa jirta haadadka waa inaa markaas iska fiirsaa ma soo daba socdaa lagu daba jiraa ana iska fiirnaa haadadka keeda leedahay oo ma ogaa kartid haddii waxa jirta wadooyinka markaa ku jirtid adiga hadda isbiidka ku socdo baabuurta qaar ku soconayaan ma laga yeelayo marka waxa lagu qasban yahay dhinaca ka leedahay wadada inaad taqaanid aad ku socon kartid iskaga socon kartid marka wadadaada aad taqaanid waxaad ka saamaxay in aad dadkii kale ku daba socday aadan xayirin aad wado siisaa lagu dhaafaa adigana tartiibkaaga u socotaa laakiin marka isbiidkaaga inta ka badan yahay kulli wax ku soo qabtaa way doonaabo wawjadan intaas kaliya waaye gaariga geer dhan intaan waaye kaliya waxay u baahan tahay maskax degan iyo qof degan iyo meel publication am dadkeeda ay yar yihiin inaad ku wadid meel dadkeeda buuxaan hadaad ku wadid dibkeeda ay leedahay waa inaad taxadir badan aad muujisaa markastana waa kuu sheegay deganaan ku soco haadadka la soco gaarigaaga adi kontaroolo yaa lagu karkabeenin waxaa jira mararka qaar xataa markaad wado fiican hayshidod isbiid yar ku socotid dad waxaa jira ku dhibaayo oo kula tartamaayo tartanka markaa aragti qofka inuu tartan rabo ha ula tartamin ka har tartiib ka har wadada si socdo yoosan ku dhibin haddii kale baxar ugu gelinaa tartan laamiyadayna Soomaaliya ma lagu geli karo sababtoo ay asiga iska yar idoo saastaa haddina wadooyinka dhinacaha dhan waxaa laga dhigtaa baawuro mootooyin wax badan ayaa yaalo marka dhibaatay ku keenaysaa kaliya hadda ujeed maanta dhan waxaan ku wadaa birimo sababtoo ay waxaan iiga saamaxay sheer la badan ma hayo hadduu sheer leega badnaa lahay waxaan ku qasbanaa lahay inaan sugunta iyo birimo sugunta teersa kuwaatan aan geliyo dhulkaasna ma hayo oo intaas baan ku isticmaali karo waa meel yaroo kooban oo loogu talagalay shaqo aan rabaa inaan cashir ku diyaariyo horaan waana maasantiin insha Allah gaariga daawud dhawaaqay waxaan rabaa reefiski inaan idin tuso tartiiba ugu soo kaca sida daayo oo birimada ay hawda kale tartiiba ugu soo kaca sheeran tartiiba u qabanaa bismillaah waqas dhaqaaqo sameey gaariga dhaqaaqo sameey ujeedid waxaa iska fiirina marka gadaal aadadka fiirsana markaan waxaa ku qasbanahay gadaal waxa iga jiro inaan la soco karo bas kaliya niimada waa intaas hadaa mar ogaatid gadaal waxa kaa jiro wax walba waa iska ilaali kartaa hadda jaa waa u jeedaa moota xagga iga taalo mootaasaa ka shakiyey hadda shaqadayda hore usii wadanaa kadib wuxuu ku macdaa laba gacan inaad waxa u isticmaashid ama reevis ahaato ama waxa ahaato maxaa la hayay horu socda ha ahaato wuxuu ku qurux badan tahay labada gacan inaad isticmaashid adan gacan isticmaalin inta marka inaad labada gacan aad ku kontaroolataa aad isticmaashaa si aad u ogaatid gadaal wixii ka jiro wixii kugu soo dhow wax walba aad ogaa kartid insha Allah ta'ala saaxiibayaal inta in ka badan waa iga mudan tihiin inaan soo diyaariyo
insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala. Caught in the crossfire.